deegaanku waa buuraleyda dhaadheer ee hareereeya dooxada ballaadhan ee Nugaal waa magaalada Godaal oo ka tirsan gobolka Sool dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 135 kiiloomitir waxaa dhulkaasi muddo toddobaad ka badan uu ka socday dagaal dhanka dhulka iyo hawada kaasoo ka qarsoona inta badan indhaha caalamka ee saxaafadda reer guuraaga deegaanadaasi ayaa ku sheegaya inay ku jiraan dagaal aanay garanayn cidda kula jirta diyaarado joog hoose ku duulaya oo ay mararka qaarkood hoos socdaan gaadiidka aadka u dheereeya oo ay saaran yihiin rag hubeysan ayaa laga soo sheegayaa deegaanadaasi odayaasha iyo waxgaradkan oo la hadlay TV-ga caalamiga ee Somali News TV ayaa ka warbixiyay dhibaatada kala kulmaan diyaaradahan joog hoose ku duulaya diyaaradahan baalka dhulka marinayo oo geeli jajabay oo arigii diday oo caruurihii argagaxeen oo haddii ilaahay idin ka dhigo wax alla waxay yihiin aanan aqoon dalka annaga iska leh annaga ilaashana cidina noogama sarrayso cidna wax kama weydiino wixii nooca ku saabsan oo ku soo xadgudba oo aan sharci ku soconayn iyo fasax ku soconayn oo dalka ku soo gelin oo ay diyaaradaha hadda iminka nawaalay ay ka mid yihiin inaana waxba kala hadhayn awoodda aanu leenahay inaana waxba kala hadhayn diyaarad haddii ilaahay idinka dhigo hadaafaysa oo dhulka baalka marinaysa oo argagixiso samaysay u adkaysan mayno una dulqaadan mayno dalkana annaga iska leh cidna wax ka weydiin mayno waxaanu haddaba adduunka maqashinaynaa ummadaha caalamka aanu maqashinaynaa hadday nagu soo noqdaan diyaaradahaas aanu dib u aragno inaana waxba kala hadhayn waan idin salaamayaa raggeena goobta isugu yimi oo doonaya inay difaacaan dalkooda waxaan u sheegaynaa adduunka iyo dadka danaynaya nabadgelyada adduunka in nala ku soo xadgudbay oo diyaaradahaasi oo horeba loo sheegay oo doonaya inay dhulka qaataan oo gurtaan oo ay waxaasi asaarahaasi ay ka mid yihiin oo ay soo saareen iyagu asaaraha waxaan u sheegaynaa inay maanta ka bacdi haddii ay yimaadaan khasaare kala kulmi doonaan midda kale waxaan u sheegaynaa dadka Sool iyo Sanaag wataa dhaqaalihiinii iyo waddankiina wixii laga guranay waxaan rabnaa goob kasta oo goobaha aan joogno ka mid ah oo goob kasta oo la baarayo in lagu diyaargaroobo oo la iska difaaco dadka tuugada salaamaya dadka tan meesha isugu yimid oo difaacanaya dalkooda iyo deegaankooda difaacanaya diyaaradahaas ku soconaya deelqaafka iyo xadgudubka oo tuugada ku shaqaynaya waxaanu leenahay hadday nagu soo noqdaan oo aan caalamka u sheegaynaa hadday nagu soo noqdaan tallaabo sharci aanu ka qaadayna waddanka waa lagu soo duulay waxay ka maraya iyo kuwa dhulka maraya duulaanku labadaba wuu leeyahay haddii aanu ka hortagnay waa kan qalabkii aanu ka qabanay dhulka marayay macdantii waxay laga soo saareen waa tii odayaashu istusayeen waxay ka hadlayaan dad meelaha ka hadlaya wuxuu leeyahay dadka deegaanka waa naga warhayaa fasax baan ka wadanaa waa beentood cidna ma soo marin cidna wax kama weydiin dad calooshu shaqaysta oo meel kale ka yimi iyo dad ajaanib way dadka guranaya kana misqaadan mayno Mawlid Ismaaciil Haradigeed Somali News TV Laascaanood